وأنا سلامي أخيارتها ديار كبسوتاي كانال كان فضلا سبسكرايب صار طابنا كان بلالكا نوتيفيكيشن كاسي أضنوك كناتو محسندين dhanka kale markii kulamadii iyo qadasharafeedkii ka dhacay dhanka Soomaaliland la soo dhameeyay ayaa labada madaxweyne waxay u soo kicitimeen dhanka daanta deegaanka Soomaalida ee magaalada Wajaale si ay ugu mahadnaqaan shacabka reer Wajaale ee soo dhaweynta ballaaran u sameeyay waxayna kulan kula qaateen shacabka qaybihiisa kala duwan hoolka shirarka ee magaalada Wajaale ee deegaanka Soomaalida iyaguna halkaasi hadallo dardaarana si wada jir uga soo jeediyay laba madaxweyne oo laba dal kala socdo maana nahay runtii waxaan nahay laba walaalaha oo maaragtay oo isku dhiiga oo isku soo koobayay marka aad iyo aad baan u faraxsanahay qaabilaadii wanaagsaneyd iyo qadadii wasiirada madaxweynaha waxaan rajaynaynaa inay noqontii ugu dambeysay ay noqoto tii horseeda kulamo fara badan oo noocaas oo kale oo isdhexgal ah oo dhanka mas'uuliyiinta dowladda iyo dhanka shacabka ayaan rajaynaynaa mar labaad aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qaabilaadii maanta iyo wada jooggeena sidaad la socotaan magaalada Wajaale waxay astaan u tahay walaadnimada ka dhaxaysa dadkeena laba wadan baa hadda lagu kala jiraa waa aragteen laakiin laba wadan dad kala jira ma yihiin dad isku mid ah dhinaca ka eegto marka arrintan si xoojino oo si kordhayaan ku jawaaynaa annagu saaka dhinacaas shisha ayaa qadana lagu sameeyay haddana madaxweynaha ayaa noo socda xagga noo soo raacay waxaan filayaa kulankeena maanta halkan aynu soo dhawo oo ahayd وانتشي iyo inay mas'uuliyadda dalkeena inay u noqon doonto farxad leh inta afroolada ku hadashaa dowladda joogtada waxa kale farxad iyo taariikh wanaagsan oo waraysan inta jecel horumarka nabadda iyo iskaashiga iyo wada noolaanshaha inay noqoto Wajaale manabadii iyo wada qabsigii iyo iskaashigii meesha labada dowladood ka bilaaba waxaan weydiisaa dadka aanu ka nimid maanta haddaana joojin oonaan Wajaale waaqadoo shirma jiro waxaan filayaa wixii Soomaaliland deganaa booraba Hargeysa iyo Gabriel iyo Ridwaane laakiin dadka waxaan sheegay jimcaha tahay maantana qalbiga iska soo dhaweeyaa muuqa iyo dariiq istaaga baa niyadda iyo soo garasho waa ruuxa iyo qalbiga marka qalbigoodina waa tilaas oo ka sidna kuwa jitiya ilaa iyo dowlad iyo afdal iyo doow iyo qurac iyo taas waa ogahay maanta qalbigooda ku xadooran halkan ilaahay waxaan u rajaynayaa nabad iskaashi iyo xirfad Ethiopia oo dhan gebigeeda waa nabad iyo horumar iyo barwaaqo lagu rajaynayo aad iyo aad waa mahadsantihiin